wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka midnimo meediya qodobada ugu doorka roona waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya oo dalacsiiyay saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliyeed wadooyinka magaalada Muqdisho oo lagu wada dib u dhisid balaaran si dib loogu soo celiyo bilicda caasimadda wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo gaaray magaalada Jowhar iyo faahfaahin ku saabsan ujeedada safarkiisa Somaliland oo xayirtay gaadiid ka yimid dalka Djibouti iyo faahfaahin ka soo baxaysa sababta keentay xayiraadaas hoggaanka sare ee midowga Yurub oo markii ugu horeeyay haweeney loo dhiibay aqalka wakiilada Mareykanka ayaa cod ku meelmariyay qaraar lagu cambaareynayo madaxweyne Trump qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkarona warkeena haatana ku soo dhawaada ayaga faahfaahsan waxaan la diyaaraa wariyaheena Axmed Xasan Ramaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa dalacsiiyay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed kadib soo jeedin ka timid taliyaha booliska Soomaaliyeed General Bashir Americo munaasabad ka dhacday dugsiga tababarka booliska ee General Kahiya ayaa waxaa lagu dalacsiiyay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska gobolka Banaadir kuwaas oo iskugu jira qaar ka mid ah taliyayaasha booliska degmooyinka taliye qeybeedyo iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir saraakiisha munaasabadan lagu dalacsiiyay ayaa waxaa ka mid ah taliyaha qaybta guud gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed Ekisa Ganshaale Sare Saadaq Cumar Maxamed oo loo dalacsiiyay sareeyo guuto sidoo kale waxaa la dalacsiiyay taliye ku-xigeenka qaybta guud ee gobolka Banaadir Ekis Gaashaale Dhexe Maxamuud Cabdiqaadir Xaaji Jago oo loo dalacsiiyay Gaashaale Sare iyo saraakiil kale wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in sanadkan wasaaraddu ay aad u hubisay adeegyada ay helayaan xujayda Soomaaliyeed ee soo gudanaya waajibaadka xajka wasiirka xogeenka wasaaradda awqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Aadan Duubow ayaa sheegay in iyaga oo ka fakaraya in aysan soo laaban culeysyo hore ee ula kulmi jireen xujayda ay waqti badan geliyeen sidii loo dhameystiri lahaa adeegyada muhiimka u ah xujayda wasiirka xogeenka ayaa dhinaca kale sheegay in shirkadaha bixiya adeegyada xajka sanadkan si siman ay u tartameen isla markaana tayadooda lagu soo kala xushay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso ayaa ku bogaadiyay shaqada adag halwadeennada dawladda hoose ee gacanta ku haya dhismaha iyo dayactirka wadooyinka caasimadda kuwaas oo iskugu jira jidad laami cusub la saarayo iyo jid cadayaal muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in maamulkiisu uu xoog saarayo dhismaha iyo horumarinta kaabayaasha muhiimka u ah caasimadda gaar ahaan jidadka iyo xarumaha maamulka si loogu dhaweeyo shacabka adeegyada ay bixiso dawladda hoose wadooyinka laamiga ah ee dhismahooda lagu guuleystay muddo sanad iyo bar ah ayaa gaaraya 9 kuwaas oo kala ah dabka ilaa Bakaaraha dhameystirka wadada Sodonka wadada Hotel SYL ilaa isgoyska Xamar Jajab wadada Dekeda ilaa Via Roma wadooyinka Jazeera Lido Shangani iyo General Daawud sidoo kale duqa Muqdisho ayaa sheegay in hadda ay socdaan dhismaha jid cadayaal dhowr ah kuwaas oo laga hirgelinayo degmooyinka Kaxda Waaberi Hiliwa Daynile Wadajir Dharkeenley Yaaqshid iyo degmooyin kale wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Master James Iswan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweyne ku-xigeenka iyo mas'uuliyiin kale ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar si weyn ugu soo dhaweeyay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya oo booqasho ku tagay caasimadda Hirshabelle ee Jowhar wakiilka ayaa kulan kula qaatay magaalada Jowhar madaxda Hirshabelle iyada oo laga wada hadlay xoojinta iyo wada shaqeynta howlgalka qaramada midoobay iyo maamulka Hirshabelle waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ka ahaa wakiilka howlgalka qaramada midoobay ee Hirshabelle Master Benjamin wararka laga helayo magaalada Looyacado ee ku taala inta u dhaxeysa dalka Djibouti iyo maamulka Somaliland ayaa waxay sheegayaan in gaadiid fara badan oo ka yimid dalka Djibouti uu ku xayiran yahay halkaas gaadiidkan oo sida rakaab kala duwan ayaa la sheegay in sababta ay u xayir yihiin ay qayb ka tahay
kadib markii maamulka magaalada Looyacado ay ku soo rogeen in ay darawalada gaadiidka bixiyaan canshuur gaaraysa ilaa $3. hase yeeshee waxaa la sheegay in darawalada ay taasi ka biyo diideen isla markaana gaadiid fara badan oo ku wajahnaa deegaanada Somaliland ay muddo 3 cisho ay ku xayiran yihiin magaalada Looyacado. codeyn qarsoodi ah oo ay sameeyeen guddiga midowga Yurub ayaa madaxweynaha guddigaasi ugu doortay haweeneydii ugu horeysay ee xilkaasi qabata. madaxweynaha cusub ee guddiga midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa waxa ay heshay 383 cod, waxayna u baahneed codad gaaraya 347 ka mid ah 747 xubnood ee codadka dhiibanayay ee xubnaha baarlamaanka midowga Yurub oo doorashadaasi sameeyay. waxaana guddiga uu dejiyay sharciyada taasi oo horseedaysa in tallaabo laga qaadayo wadamada xubnaha ka ah haddii ay qaladaad galaan. Ursula ayaa u mahadcelisay baarlamaankii doortay iyadoo ku tilmaantay kalsoonida ay xubnahaasi siiyeen inay ka tarjumayso midnimada midowga Yurub qeybaha bariga, koonfurta, galbeedka iyo waqooyiga Yurub. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa cod ku meelmariyay qaraar lagu cambaareynayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hadalkii cunsuriyadda ahaa ee uu ku yiri 4 gabdhood oo ka tirsan aqalkan. 240 xildhibaan ayaa ku codeeyay haa, halka 187 xildhibaan ay ku codeeyeen maya, taas oo ka dhigan in 4 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Trump iyo waliba xildhibaanka kaliya ee madaxa bannaan Justin Amash ay codkooda ku biiriyeen dimuqraadiyiinta. isla markii la meelmariyay qaraarka, xildhibaanka xisbiga dimuqraadiga Green ayaa diiwaan geliyay mooshin codka kalsoonida lagu qaadayo Donald Trump. madaxda xisbiga ayaa diidan in ay hore u sii wadaan arrinka xilka xayuubinta Trump xilli xubno badan oo xisbiga ah ay arrintaasi ku baaqayaan. guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayna daawadayaal war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad kala socoteen Midnimo Media. waxaana warkaasi wadajir halkan idinkaga soo jeedinayay Sagal Xaaji Yuusuf, Sagal Cudoon iyo anigoo Axmed Xasan Ramaas. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.